السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا الصومالي هيلث لايف ستايل وان channel كعلى باقي حديدان وحي عفمات كقصية ان أدقو المها غير ممكن أتصور لجلية حدي أركتون الحدي عطان بحنيسا مركز تصور كقاطو ان دي سنولي أيرتها مقرانسا سند يوحي كوين يوم مقرانسا ضد إلا تونس سنة وحي كيربوية أركاس إن أقول لكم لحتى مهم أو أنا سخرا isla markaba doctorka waa in maxay laga qaado sawirro madaxa ah oo lagu ogaan karo arrin loo yaqaano retinoblastoma xanuunka retinoblastoma ee aan hadda carab ku dhuftay waxa uu ku dhacaa isha qaybta loo yaqaano retina oo ah qaybta oo in wax ku aragno sideedaba markaas neerfayaasha maskaxda taga ay ku rakiban yihiin waayo maxay waxa jira maxay muraayadan sare marka laga yimaado waxa ka sii hooseeya magaranaysa glass yar oo labada dhinacba ka qoolaaban oo ay sii maro magaranaysa yani iftiinka aynu arkayna halka uu markaa ku dhamaado iftiinkaasi ee sawirka sameynaysa maskaxda u sii gudbinaysa waxa loo yaqaan retina qofka macaanka qaba xataa meesha maxay marka wax xumaata waa halkaas magaranaysa nabeelka u keenta aduu aad muhiim ilmaha yar marka halkaas baa maxay ka soo baxaya cancer loo yaqaano retinoblastoma ilaahay naga ilaaliyo waayahay laga yaabaa inay ishu casaato inuu madax xanuun keeno inaad aragtaba ishu soo barartay inay ishu dibadda soo baxdo in garanaysa dawaq bilaabo in aad aragto maxay isagoo isha ay cawaran tahay oo garanaysa dhinaca kale eegayso garanaysa waxaas oo dhan ku garan karta laakiin hadii uu sidan u qarsoon yahay oo aad kaliya tan markaad flash tasaa garanaysa mobilka ama mesela kamarada flashtiisuna ay cadaan ishaas noqoto waxa ay noqonaysaa inaad garanaysa markaas kale aad hore ka ogaan karto adigu isku soo duuduub marka maxay xanuunkaas marka la diagnose kareeyo la ogaado dawooyinka la bilaabayo iyo deegaanka hadii amaliyad loo sameeynayba waxa marka la gudboon waalidka iyo doctorka in magaranaysa si degdega arrinta loo galo waayo waa very ama waa highly metastasis yani siro degdega maxay u mutaskaranaya oo jirka qaybaha kale maskaxda iyo magaranaysa laf dhabartaas uu gaari karaa oo laafay karaa waayahay sidii aan magaranaysa xalqadii horeba ku sheegnay xanuunkii Wilms tumor ee kelida ka soo baxay kana waa la mid waa maxay waa genetic mutation laga yaabaa in geneska magaranaysa jirka ku jira in qaarkood ay magaranaysa mas'uul ka yihiin waana la isu gudbiyaayo abaay hooyadu way gudbin karaan marka 50-50 ama hooyadu ka soo gaaray ama abuhu ka soo gaaray hadii ay jiraan marka dad iskuursanaya waxa maxay aad u muhiim ah in ay magaranaysa sameeyaan wax la yiraahdo genetic counseling hadii la ogaado geneskaas inay keeni karaan retinoblastoma ama waa maxay Wilms tumorkii saakaan sheegnay waa in waqti hore magaranaysa la kala bayro aan iskuursan ka genetic counselingku aad buu muhiim yahay si looga fogaan karo xanuuno badan oo carruurtu ay magaranaysa ku dhalan karaan dadkan maxay badan qaraabada iskuursadana iyagu waa min baabil awla markaas retinoblastoma iyo Wilms tumor waxay ka mid yihiin xanuunada is-shabaha carruurta maxay waqtiga aad ka weyn yihiin ka soo bixi kara. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.